habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxa ay kala yihiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay halis nuclear ku ahayn kadib markii uu ka soo laabtay kulankii isaga iyo Kim Jong Un. Hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya masiibo cusub oo bini'aadanimo iyadoo xulafada Sacuudigu horkacayo ay duqeyn culus ku hayaan magaalada xeebta ku taala ee Xudayda ee waddanka Yemen. Ula gaar ah oo dumarka Itoobiya ay isku difaacayeen jiilka jiil waxaanu sharaxi doonaa dhaqankan cajiibka ah ee gobolka Oromada ee Itoobiya. waxaanu ku bilaabaynaa madaxweyne Trump oo sheegay in aysan jirin wax halis ah oo la xiriira hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi isla markaana aysan halista ugu weyn u ahayn Mareykanka waxa ku soo fool leh wuxuuna ku qoray Twitterkiisa saaka markii uu ku soo laabtay oo uu ka yimid kulankii uu kula yeeshay waddanka Singapore Kim Jong Un. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa hadda ku sugan magaalada Seoul si uu ugu sharaxo go'aanada cusub Kuuriyada Koonfureed. Aisha Afrax ayaa ka waramaysa. muuqaalkani waa telefishinka dawladda Kuuriyada Waqooyi. haweeneyda soo jeedinaysa wararka ayaana arrin la yaab leh ku dhawaaqday. waxa ay sheegtay inuu Mareykanku ka qaadi doono cunaqabataynta Kuuriyada Waqooyi sidoo kale inuu joojin doono dhoolatusyada ciidan oo ay la sameynayaan Kuuriyada Koonfureed. heshiiska rasmiga ah ee lagu saxiixay Singapore ayaanan lagu xusin mid ka mid ah arrimahani. madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo hadda sheegay inuusan cunaqabataynta weli qaadin balse in la joojin doono dagaalka afka iyo dhoolatusyada ciidan. hase yeeshee go'aankan ayaa ku ahaa mid lama filaan ah dhammaan Kuuriyada Koonfureed, ciidanka Mareykanka, wufuudda Mareykanka iyo Japan oo isbahaysi muhiim ah u ah Mareykanka. weli go'aama la islama qaadan laakiin waxaa muhiima in carbinta ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ay muhiim u yihiin amniga bariga waqooyi ee Aasiya. xoghayaha Mareykanka ee Mike Pompeo ayaa hadda yimid Kuuriyada Koonfureed si uu ugu faahfaahiyo arrinkan. laakiin iyadoo xaaladan ay taagan tahay ayaa waxaan weli caddayn nuclear-ka dhigista. wadahadallo lala yeesho Kuuriyada Waqooyi oo ku saabsan arrimahan waxay noqonayaan kuwo adag oo u baahan inay aqbasho in la kormeero dowladdeeda mana ahan wax ay weligeed horey u ogolaatay. madaxweyne Trump ayaa sheegayay inuu qabtay shaqadiisa. waxa uuna Twitterka ku qoray inaysan jirin wax halis ah oo ku saabsan nuclear-ka Kuuriyada Waqooyi. waxa uuna ku soo gabagabeeyay hadalkiisa habeen wanaagsan. faahfaahin oo ku saabsan warbixintaasi iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo ka geli kara mobilkaaga. dalka Yemen ciidamada Sacuudiga ayaa weeraray meel u dhow magaalo xeebeedka Xudayda. hay'adaha samafalka ayaa ka dayrinaya xaaladda bini'aadanimada ee dagaalkan. weerarada Sacuudiga ayaa bilowday dabayaaqadii 2014 waxaana ka dhashay masiibooyin bini'aadanimo oo baahsan. malaayiin dad ah ayaa hadda ku tiirsan gacanta hay'adaha gargaarka waxaana hay'aduhu iminka ay dirayaan digniin in weerarkan dambe ay ka dhalan karto dhibaatooyin bini'aadanimo oo kale. Sacuudiga ayaa bartilmaameedsanaya goobaha iyo dhufaysyada muhiimka ee Xuutiyiinta ee ku yaala gudaha iyo agagaarka magaalada. ciidamada ayaa ku sii durkaya Xudayda iyadoo in ka badan 9,000 oo askari ay ka soo weerarayaan koonfurta magaalada. waxaa marin ka furan yahay waqooyiga magaalada si ay Xuutiyiintu uga baxaan haddii ay go'aansadaan inay baneeyaan magaalada. waxaa hadda lagu dadaalayaa sidii miinooyinka looga xaaqi lahaa wadooyinka si ciidamadu u soo galaan. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta. labada xisbi ee ugu weyn Ciraaq oo ku guuleystay inta badan codadkii doorashooyinka baarlamaanka ee bishii hore ayaa isku biiraya si ay u sameeyaan xulafadii siyaasadeed ee ugu ballaarnaa waddanka.
talabadan la yaabka leh oo ay sameeyeen wadaadka muqtadar al-sadr iyo hogaamiyaha maleeshiyada iiraan ay taageerto xaadi al-amiiri ayaa ah tii ugu horeysay ee lagu dhisayo dowlad cusub. waddanka Malaysia labada xaakim ee ugu sarreeyay ayaa xilkii iska casilay taasi oo sii kordhinaysa liiska saraakiisha sare ee shaqada ka tagay ama la bedelay kadib markii si la yaab leh uu u guulaystay ra'iisul wasaare Maxamed Mahathir bishii hore. war ka soo baxay maxkamadda federaalka ee Malaysia ayaa lagu sheegay in xaakimka guud iyo madaxweynaha maxkamadda racfaanka ay xilka ka degi doonaan dhamaadka bisha July. daraasad cusub ayaa lagu soo gabagabeeyay in dadka da'da dhexe ah ee wax yar uu kacsan yahay dhiigkarkooda in ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco cudurka asaasaqa. cilmi-baarayaal ku sugan London oo baaritaan ku sameeyay in ka badan 9,000 oo shaqaale rayid ah ayaa ku ogaaday in konton-jirada dadka ee qaba dhiigkarka 30% cabirkiisu yahay halis inay yihiin cudurkaasi marka loo eego kuwa ka hooseeya cabirka 30%. maxkamadda caalamiga ee dambiyada ee ICC ayaa bilaabaysa mashruuc lacageed oo lagu caawinayo dhibanayaasha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. maleeshiyadii mar uu gacanta ku hayn jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Congo Jean Pierre Bemba. Mr. Bemba ayaa la sii daayay markii racfaan uu qaatay oo garsoorayaashu ay tuureen dambigii lagu helay ee la xiriiray dambiyada dagaalka. waxaa maleeshiyadiisa uu u diray waddankaasi 2002 si uu u cadaadiyo Afgambi markaasi oo la sheegay in ciidankiisu ay geysteen dil, kufsi iyo dhac. gobolka Oromada ee waddanka Ethiopia Siku waa ul qarniyo jiilba jiil ama facba fac laga dhaxlayay waana dhangad dhaqan xambaarsan oo awood iyo hiil ku caawisa haweenka Oromada. waatan Suhayba Maxamed Badqas oo noo faahfaahisa. ula caadi ah baa la moodaa mase ahee waa kuwa haweenka Oromada xuquuqdooda ilaaliya. marka haweenayda la guursado waxa loo soo gooyaa u la yiraahdo Sinku. Sinku waxay astaan u tahay kartida dumarka waxaanay sidoo kale ilaalisaa xuquuqda haweenka qoyska oo dhan. sharciga dhaqankeena ayaa sheegaya in haweenkaana lagu xadgudbin iska badaa in la garaacee waana dembi. dhacdadan waxa lagu matalayaa sida haweenayda u adeegsato usha Sinku haddii saygeeda uu gacan qaado. iyadoo usha sidata ayay u qayshataa haweenka kale ee jaarkeeda ah oo u soo gurmada. markiiba intay u yimaadaan bay isku xeeraan si ay u nabad gasho. adeegsiga usha Sinku waxay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee Gaada oo ah xeerka ay isku xukumaan dadka Oromada Itoobiya. markii la asaasay hanaanka Gaada ragga waxa la siiyey waxyaabo ay kula dagaalamaan cadowga. dumarkana waxa la siiyey usha Singu si xuquuqdooda ay ugu dagaalamaan. markay dumarku qayliyaan waxa soo baxa oo goobta yimaado odayaasha si ay arrinta u ogaadaan oo ay garta u qaadaan. ma ahayn in la garaaco mana nasanayno inta xukunka laga bixinayo. markay dacwadda dhageystaan ayay odayaasha go'aan gaaraan oo xukunka ay ridaan. hadda ninkeedii baa qaladkiisii gartay waxa uuna ballan qaaday in aanay mar dambe dhici doonin. haddii uu ballankiisa ka baxo odayaasha ayaa ciqaabi doona. waxayse odayaasha sheegaan inay dhif yihiin ragga ballan ay qaadeen ka baxaa. haweenay marnaba been ma sheegto. ilaahayna waxa uu garab siiyaa kuwa aan beenta sheegin. waxaanay odayaasha doonayaan in dhaqankan loo gudbiyo jiilalka dambe. aabbaha ayaa ka mas-uul ah in usha uu u soo jaro gabadhiisa kadibna hooyada ayaa siinayso gabadha. aniga ushayda hooyaday ayaa i siisay. xagga wararka ciyaaraha haddaynu eegno koobka adduunka ee 2026 ayaa lagu qaban doonaa wadamada Mareykanka, Canada iyo Mexico oo codsigoodii wadajirka ah uu ka wanaagsanaaday codsigii Morocco oo doonaysa inay martigeliso koobka adduunka. xubnaha ururka FIFA ayaa doortay iyadoo ay ku guuleysteen dalalkaasi 134 cod halka Morocco ay ka heshay 65 cod. koobka adduunka ee 2026 waxa uu noqon doonaa kii ugu weynaa abid. 48 kooxood baa ciyaaraya 80 ciyaarood muddo 34 maalmood. wariyaha BBC-da Peter Okwoche oo ku sugan magaalada Marrakesh ayaa ka waramaya.
waa u guul darro kale Morocco oo doonaysa inay martigeliso koobka adduunka. Dadka qaar ayaa rajaynayay in dalabkooda shanaad uu noqdo mid nasiib leh, laakiin taas ma ay noqon. Marka dhexdhexaad loo eego, Morocco mar walba fursadeedu ma wanaagsanayn. Xilli dambe ayay tartanka ku soo biireen. FIFA-na waxay ballaadhisay tartanka koobka adduunka ee 2026. sidaa daraaddeed Morocco waxaa looga baahnaa inay hormariso kaabayaasha waddanka. Peter Quache. Spain ayaa iyana shaqada ka eriday tababarihii kooxdooda qaranka 2 maalmood ka hor furitaankaasi koobka adduunka. xilka erinta Julen Lopetegui ayaa timid maalin kadib markii kooxda Real Madrid ay u magacaabeen tababarahooda cusub kadib markii ciyaaraha Ruushka ay dhacaan. Lopetegui ayaa dhawaan heshiiskaasi Spain loo cusboonaysiiyay. ciyaaryahanka koowaad ee xagga tenniska ee adduunka Rafael Nadal ayaa isagana ka baxay tartanka toddobaadka soo socda ee FIFA 3 Champions la yiraahdo ee Queen's Club ee London ka dhacaya. Nadal waxa uu ku guuleystay koobkii 11aad ee French Open Axadii, waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay inuu nasto ilaa laga gaarayo tartanka Wimbledon ee bisha soo socota. Maxamed Nuur mar buu ahaa xidig aad uga dhex muuqda darawallada baabuurta tartanka ee Kenya. Dabayaaqadii 70-meeyadii wuxuu ahaa qofkii Soomaali Afrikaan ahaa ee ugu horeeyay ee ka qayb gala tartanadaasi. Waxaana Soomaalida ku dhaqan gobolka Geeska Afrika oo dhan ay u arkaan inuu calanka u siday. Ciyaarahaasi haatan waxa uu degan yahay Nairobi oo qoyskiisa uu kula nool yahay. Haddaba waxa ku dhaliyay inuu noqdo darawal ayaa BBC-da uu uga waramay. anigoo iska shaqaynaya ayaan tartamada eegi jiray baabuurta siday u tartamayaan, waan raaci jiray kuwa wax la qabta ayaan u ka mid ahaa. sidaan u waday baan arkay meeshan inay cadaadis jiro, la cadaadinayo madowga habka lagu sheegayo dadku u soo geliyaan waxay ahayd cadaan, hindi, madow. marka tii madowga ahayd baan ka yasay aan maxaa madowga numberka 3 loo gelinaya waa inuu meesha aniguna tartanka gala. saasaan ku bilaabay, aan gacanteeda ku dhisay baabuur yar. horta ugu horeysa waxayaan kii marka bilowgayga ahayd aan ka bilownay magaalada la yiraahdo Dar es Salaam. marka waxay 3 wadan baan mari jirnay, Kenya, Tanzania, Kenya iyo Uganda. waxaan soo dhameeyay tii safarkii Tanzania, Kenya, Uganda. markaan soo socday meel Kenya la yiraahdo Kapenguria, Kitale u dhow ayuu gaari uga xumaaday. marka la eegona 3 meelood safarkii marka waan dhameeyay, waana markii ugu horeysay aan galo safarka weyn. waxa kale ee igu wanaagsanaa waxayaan tartanku markuu ahaa 1987 ayaan dhameeyay. dhameyska kaliya ayaa wax weyn ahaa. marka anigoo kale aanu kaligiis caaminayay ninka Afrikaanka kaligii lacagta isagu iska bixinaya ama dadka saaxiibada yar ila bixinayeen oo dhameystira ayaan noqday. markaana farax weyn ayay ahayd. tartan qiimo weyn buu ahaa, adduunyada oo dhan baa image dadka geli jiray dad yar oo kooban oo ismudan oo iyagu is yaqaan oo ishuba oo baabuurtoodana huba ayaa geli jiray. yani sidee u adkay wadadu tay ugu sii xun tahay xuntahay baan la barin jiray. dadka baa markaan ka fariistay sanadka markaa 1982. hadda waxaan ka shaqeeyaa guryaan dhisa, guryana waan iibiyaa, qaarna waan dhisaa. waxaasan ka shaqeeyaa. waa tahay ugu dambeyntiina waxaan idinkaga tegaynaa muuqaaladan bal horta daawada. ma ahan qof caadi ah oo raacaya treenka Washington DC ee dhulka hoostiisa mara, balse waa deero soo dhexgashay halkan. cajiib. laakiin nasiib wanaag way ka badbaaday inay qabato korontada xarkaha biraha ee treenkaasi. mas-uuliyiinta treenada waxay sheegeen inay si nabada uga soo saareen deeradaasi. inta ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkii. intaanu mar kale kulmayno habeen wanaagsan.